geesinimadu ma aha in aad aargoosato balse waa inta aad dulqaad iyo samir leedahay si aynu dadka ugu qancino sida aynu u fikirayno marka hore waa in aynu fahanno sida ay iyagu u fikirayaan haddii aad doonayso in aad wax hogaamisana waxaa lama huraan ah in aad ogolaato in adiga lagu hogaamiyo haddii laba ruux faras keliya wada fuulaan waa qasab in midkooda uu dambeeyo qof aan fikirin waa dameeri dhaan raacday qof in uu fikirba aan awoodi karin waa doqon laakiin qofka aanba ku dhiiranin in uu fikiro kaasi waa addoon waa ay adag tahay in ruux jaahil ah aad dood kaga adkaataa ujeeddadu cilmigu ma aha in xaqiiqda la ogaado balse waa in qayimka wanaagsan la barto adduunyada waxa ugu weyn ee ku dhaqanin waa bil'aadankana waxa ugu weyn ee ku jiraanna waa caqliga ha ku ciyaarin shucuurta dadka kale waa suurtagal in aad ciyaarta ku guulaysato ama aad ka gaartay danta aad ka lahayd laakiin khatarta ka dhalanaysa waa in aad qofkaasi weydo qofka doonistiisa sharci ka dhigaa sharci la'aan ayuu dhacaa haddii aad doonayso in aad gooso qof aad jeceshahay ama saaxiibkaa dhaawac ha kaga tegin qofka qalbigiisa ina siiyey nagama mudna in aynu waran ku taagno ama ilbiriqsi uu murugoodo sabab u noqono maxaa ka fiican in qof aad kala tagteen in xasuustiina uu ku haro waqtigii fiicnaa ee aad soo wadaagteen qofka wanaagsani waa kan mar kasta garanaya qiimaha waxa aad siisa leeyahay xitaa haddii uu wax yar yahay marka aad go'aan gaarto ee aad bilowday fulintiisa waxa keliya ee kuu muuqda ha noqdo in aad natiijo ka gaarto wax kasta oo taas ka sokeeyana dan yeesan kaa gelin dadka oo dhan jeclaaw dad yarna ku kalsoonaaw cidna xaqa ay kugu leedahay ha ku xadgudbin